madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray inuu ka baxay isbitaalka dib ugu laabtay aqalka cad ee Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray inuu ka baxay isbitaalka oo dib ugu laabtay aqalka looga arrimiyo dalka Mareykanka. ku dhawaaqadiisa waxay timid waxyuun ka hor shir jaraa'id uu la yeelanayo dhaqaatiirtiisa. madaxweynaha waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad aad uga wanaagsan tahay sida uu 20 sano ka hor ahaa. Mr. Trump ayaa wuxuu sidoo kale difaacay go'aankiisa oo isbitaalka ugu baxay oo uu soo salaamayay taageerayaashiisa banaanka hore ee isbitaalka ku sugnaa habeenkii Axadda halkaas oo lagu dabiibay caabuqa coronavirus. wuxuuna sheegay in haddii uusan sidaas sameyn lahayn ay saxaafadda Mareykanka ugu yeeri lahayd mid aan naxariis lahayn. qubarada caafimaadka ayaa su'aalo ka keenay go'aanka Donald Trump oo ugu soo baxay isbitaalka si uu u salaamo taageerayaashiisa iyadoo gaariga uu ku marayay banaanka hore ee isbitaalka lagu dabiibay caabuqa coronavirus. waxaa jira walaac laga qaba in madaxweynaha Mareykanka ugu xirnaa afsaab ama marada afka lagu xirta ayaa laga yaabaa inuu halis geliyay ilaalada madaxweynaha kuwaas oo gaariga la saarnaa. afayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in safarkii Axadda ee kooxda caafimaadka ansixiyeen ayna ku tilmaameen mid nabdoon oo badqab ah. su'aalo ayaa weli ku geedaaman xanuunka Mr. Trump kadib markii hadallo iskhilaafsan ay ka soo baxeen dhamaadka isbuucan. isagoo la hadlayay telefishinka Fox News, madaxa shaqaalaha ee aqalka cad ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay goor dambe go'aansadeen in madaxweynaha laga saari doono isbitaalka. madaxa shaqaalaha ayaa sidoo kale sheegay in mar sii horeysay uu la hadlay Mr. Trump ee xaaladiisu ay muuqato mid ka soo reynaysa habeenkii saddexaad ee isbitaalka uu ku jiro. madaxweynaha ayaa fiidnimadii Jimcadii loo qaaday isbitaalka saacado kadib markii uu shaaciyay in laga helay caabuqa coronavirus. mar sii horeysay xogayaha saxaafadda ee aqalka cad ayaa noqotay qofkii ugu dambeysay ee ka agdhawaa madaxweyne Trump oo laga helay caabuqa coronavirus. laba xubnood oo kale oo ka tirsan kooxda warbaahinta ee aqalka cad iyo qaar ka mid ah wariyaasha ayaa sidoo kale laga helay caabuqa coronavirus. ilaa iyo haatan cudurka COVID-19 wuxuu dalka Mareykanka ku soo ritay in ka badan 7.4 milyan oo qof waxaana fayraska u geeriyooday ku dhawaad 210,000 oo qof oo Mareykan ah.